gabadhi ugu quruxda badnayd baa nabiga loo doorbido nabiga la siiyey waa Safiyata bint Huyay ummul mu'minin radiyallahu anha markaabuu nabigu yimid Aisha iyo Xafsa wuxuu gabadhaaba la igu deeqo la ii keenay aroos baan hay galbiye buu gabadhan orda isi diyaariya markaasay u tageen markay u galeen waaba gabar qurux badan ba ka wada qurux badan ba iyakii way shaqisay Xafsa iyo Aisha way eegeen labadaasina dhinac bay ka wada socdeen moogta dumarka nabiga baa leeyahay qaarna Aisha iyo Xafsa dhinac u hogaaminaysay qaarka kalena Ummu Salama hogaaminaysay baa leeyahay iyo Juwayriya markaas sidaa u eegeen ilaa wallahi tan haduu nabigu caawa la seexdo dib dambe inii xasuusan ma maayo markaabay soo soo hagaajiyeen way ka soo noqdeen Xafsa nabiga ka hortimid Xafsa bal ka waran yaa rasuulallah daaway rasuulada waa ka horeysay oo ku hagaajinay bal horeyso hay maxaad aragtay yahuudiyad baan arkay bal horeyso bay ku tiri hadana Aisha ka hortimid oo careysan Aisha waa si hooyanaya bal ka waran waa laga horeeyay dab ka waran maxaad aragtay yahuudiyad baan arkay ordo markaabuu nabigu yiri Aisha itaqillah waa muslimad gabadhu buu ya rasuulallah waa yahuudiyada u tag bay ku tiri markaasuu nabigu u yimid 7 cisho markaa la jooga iyadii markaabay soo buuqdaan dumarku maalinkiina nabigu raggu la jooga iyadana markaa dumarka ayaa u imanayo markaa waa aroosadii waa la maawelinaya Safiyata bint Huyay buu nabigu habeen u soo hoyday iyadoo ooyeysa bal sida nabigu dumarkiisa ula dhaqmayay uu kala ilaalinayay markaabuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ku yiri maxaa ku helo la ooyeysa markaabay tir yaa rasuulallah dumarkaaga qaarkood markay ii yimaadaan waxay leeyihiin waa yahuudiyad waa tuma waa Aisha iyo Xafsa radiyallahu anhum markaabuu nabigu yiri u jawaab maxaan ugu jawaabaa waa runtoodu ana naag yahuudiyad aan ahay kuna waa gabdha carbeed weeyaan markaabuu nabigu ku yiri saad ugu jawaabaysaa aniga ku sheegay kolka yahuudiyadii ay ku yiraahdaan waxaad ku tiraahdaa nayaaday dhageysta aniga aabahay nabi buu ahaa adeerkayna nabi buu ahaa zawjkayguna waa nabi Maxamed